dowladda Soomaaliya oo maanta mar kale hub iyo gaadiid dagaal diyaarado ku geysay degmada Doolow ee gobolka Gedo. madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dowladda ku eedeeyay ay awoodeeda ciidan isugu geysay gobolka Gedo ay ka abuurayso colaad. Bannaanbax looga soo horjeedo dagaal beeleed ka taagan deegaanka Dalsan oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. wasiirada caafimaadka gaadiidka iyo taliyaha laanta socdaalka Soomaaliya oo Muqdisho kulan looga hadlaya ka hortagga caabuqa coronavirus. caruur cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyooday degmada Buulaberde iyo maamulka degmadaasi oo dalbaday gargaar degdeg ah. aqalka sanadka ee Mareykanka oo maanta u codeynaya dacwad xilka qaadis oo laga gudbiyay madaxweyne Donald J. Trump. ciidamada amniga Puntland oo magaalada Boosaaso ka sameeyay howlgallo culus oo lagu soo qabqabtay dhalinyaro fara badan. dowladda Yemen oo weerar Argosiya ku qaaday xuutiyiinta ka dagaalanta dalkaasi. iyo dowladda Iiraan oo wadahadal ugu baaqday Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. markale duhur wanaagsan dhageystayaal waa Arbaca ay taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha 2 ee February 2020 warkii aad dhageysateen oo uu soo saaray Maxamed Cali Maxamed waxa soo jeedinaya anigoo ah Shamid Xasan Haruun iyo Maxamed Shuuriye Dhuur ku soo dhawaaday mikana warkii oo fidsan. dowladda Soomaaliya ayaa maanta mar kale hub iyo gaadiid dagaal diyaarado ku geysay degmada Doolow ee gobolka Gedo. dhinaca kale madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dowladda ku eedeeyay inay awoodeeda ciidan ay isugu geysay gobolka Gedo oo ay ka abuurayso colaad sida warkan uu ku eegayo Axmed Maxamed Ibraahim. degmada Doolow ee gobolka Gedo wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha magaaladaasi ay ka dejisay dowladda Soomaaliya diyaarad sideesaanad hub iyo gaadiid dagaal isugu jiray kuwa oo lagu talagalay sida la sheegay ciidamada booliska ee maalmo ka hor halkaasi gaaray. ciidamada ayaa waxay ku sugan yihiin degmooyinka Doolow, Beled Xaawiye, Luuq kuwa uu gacan ku haynta magaalooyinkaasi la wareegay goor dambe oo shalay ah. sidoo kale magaalada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa iyana waxa lagu wadaa saacadaha soo aadan in halkaasi laga dejiyo ciidamo boolis ah waxaana xogtan ka soo xiganay saraakiisha ammaanka ee gobolka Gedo ku sugan. waxaa la tilmaamay ciidamada Baardheer la geenayo inay u sii ruqaasan doonaan magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe halkaas oo ay maamulaan Al-Shabaab lana doonayo in laga qaado. goobjooga ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa keenan ugu waramay diyaaradda hubka iyo gaadiidka dagaal waday oo halkaasi saaki ka degtay. diyaarada geesa wax lagu soo maray ma jiraan. falaydkii ugu horeeyay baa saaki degay, falaydkii kalena weli ma soo maya saanad military bas wada hubiya waxay wada baabuurta gaashaamna. dowladda federaalka ciidanka dowladda federaalka oo weliba ciidanka haramacda oo ka tagay degmada Luuq hadii uu kulay degmooyinka gobolka uma loo qaybinaya waa un istaraatiiji ugu badan garoon diyaaradda ka digi karto waa degmadaas ugu weyn ayadaas bay ka degayaan ayadaas baa kulay markii deegaan ka bacdi baa la qaybinaya. ciidamada ka tirsan dowladda federaalka oo militariga nabadsugiid iyo booliska leh baa gacanta ku hayo. aad baa loo soo dhaweynaya gobolka dadka jooga aad u soo dhaweynayaan waana aad baa loogu faraxsan yahay in dowladda ay soo gaarto gobolka ay u qaybsanto aad baa loo soo dhaweynaya shacabka ku nool. alxamdulillah nabad baa ka jirta barwaaqo bashbash baa ka jiro wax colaad iyo wax dhib oo ka jira ma lahan. maamulka joogo waa maamul dowladda federaalka hoostago ciidamada waa ciidamada federaalka dowladda federaalka ay ka amar qaadanayaan wasaaradda gaashaandhigii hoostagaan ciidamadaas oo dhan waa ciidamada dowladda hoostaga weeye maamulkooda iyo waxa dhan. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa wararku sheegayaan in isaga iyo ciidankiisu ay ku sugan yihiin xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya saacadaha soo aadan doonayo inuu gaaro degmada Ceelwaaq halkaas oo la sheegay inuu kula kulmi doono odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. geesta kale madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo qoraal kooban uu soo saaray ayuu kaga hadlay xaaladda ka taagan haatan gobolka Gedo. madaxweyne Guuleed ayaa sheegay in ayaandaro ay tahay ciidamada dowladda ee lagu talagalay in lagu dagaalamo Al-Shabaab loo adeegsanayo guluf culaadeed oo ay ka wada dowladda gobolka Gedo si loo wiiqo buu yiri awoodda maamulka Jubbaland. run ahaantii ma ahayn xaaladda ka taagan gobolka Gedo inay abuurto dowladda Soomaaliya marna lama filayn arrinkaasi waxayna abuuraysaa colaad iska horkeen bulsho fursadna siinaysa cadawga Al-Shabaab ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweyne Guuleed. ugu dambeyn Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug ayaa ku baaqay in wax waliba oo khilaaf ah lagu xaliyo wada hadal iyo deganaan ayna joojiso buu yiri dowladda Soomaaliya waxa ay ka wado gobolka Gedo. bannaanbax looga soo horjeedo dagaal beeleed ka taagan deegaanka Dalsan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan magaalada Kismaayo inay ka soo diray.
iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay duleedka magaalada Kismaayo ay ka socdeen dagaal beeleedyo u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo wada deegaanada duleedka ka ah magaalada Kismaayo ayaa waxa magaalada Kismaayo maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo colaadaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday deegaanka dalsan ee dhaca dhinaca galbeedka magaalada Kismaayo dadka dibadbaxa dhigayay oo u badnaa haween ardayda iskuulaadka Kismaayo dhalinyaro iyo odayaal ayaa waxa ay ku qaylinayeen erayo ay ku muujinayaan muhiimadda ay leedahay nabadda dadkan ayaa waxa ay socod dheer ay ku mareen qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo iyagoo intaasi kadib isugu yimid barxadda weyn ee beerta magaalada Kismaayo waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka iyo culimaawidiinka iyo odayaasha dhaqanka iyadoona labada dhinac ee dirirtu u dhaxayso ugu baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaal beeleedyadaasi waan ka daalnay wiilashaanada yaryarka ah ee dhalinyarada ah ee muddadii dheereed ka soo haray dhibaatadii iyo xuqdigii in maanta la isu adeegsado aad iyo aad baan uga xunnahay run ahaantii ilin bay naga keentay waxaana leenahay ha la joojiyo dagaalka sidaa aawadeed waxaad isku haysaan maanta lama yaqaano lama garanayo maanta waxaad isku doonaysaan dhulka ilaaha baa yidhi dhulka kiina nool iyo kiina dhintay labadaba waa idinku falo yidhi dhulkana ilaaha baa iska leh asaga ayaa milkiyey wixii ka soo harana maamulka iyo dawladda ayaa maamulayso waxaan leeyahay joojiya dagaalka waxaan leeyahay xabadda joojiya colaadda joojiya wiilasha yaan cidlo lagu laaynin gabdhayahow ragga dhexgala dhex istaaga orda hore u socda in badan baan dagaal ku soo jirnay hadda waan ka baxnay meel fiican bay maraysaa yaanan dib u noqonin yaanan dib loo noqonin dhinaca kale waxaa saacadihii ugu dambeeyey degan xaaladda deegaanadii dhowaan ay labadaasi beelood colaadda ku dhex martay iyadoona maamulka Jubbaland iyo odayaasha labada dhinac saacadihii ugu dambeeyey kulamo gooni ah uga socday gudaha magaalada Kismaayo kuwaasi oo qodobo hor u dhac ah ku heshiiyey Cabdilmajiid Cabbaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo markana Muqdisho wasiirada caafimaadka gaadiidka iyo taliyaha laanta socdaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho kulan looga hadlaya ka hortagga caabuqa loo yaqaan coronavirus ee ka soo bilowday wadanka Shiinaha shirkan ayaa waxa lagu soo bandhigay calaamadaha lagu yaqaan cudurka coronavirus iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu kala qaadi karo waxana maanta ku qabtay magaalada Muqdisho wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya shirkan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka Soomaaliya Toraysa Fawsiya Abikar Nuur wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi madaxda ka qayb gashay shirkan ayaa isku raacay in muhiim ay tahay ka hortag lagu sameeyo cudurkan inta uusan dalka soo galin kuna baahin lana hubiyo xuduudaha dalka dadka ka soo galaya wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ka bilowday baaris lagu sameeyo dadka ka soo degaya garoonka cudurkan coronavirus ayaa waxa uu saameeyay dalal dhowr ah kaasi oo hadda caalamku uu ka qaylinayo loona diyaarinayo dawooyinka looga hortago caruur ayaa cudurka shoombiyoodka ugu geeriyootay degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan dhanka kale maamulka degmadaasi ayaa waxa uu dalbaday in gargaar degdeg ah lala gaaro cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya xilli cudurka shubanbiyoodka oo dhibaato badan uu ku hayo deegaano degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa degmada Bulaburde ee gobolkaasi waxaa laga soo warinayaa in caruur ay ugu geeriyootay cudurka shubanbiyoodka siyahayaha xilka gudoomiyaha ee degmada Bulaburde Liibaan Cabdi Yuusuf ayaa sheegay in isbitaalka guud ee degmadaasi la keenay caruur fara badan oo cudurka uu soo ritay 4 caruur ah ayaa geeriyootay halka kuwa kalena ay la ildaran yihiin cudurka shubanbiyoodka sida uu sheegayo Liibaan Cabdi Yuusuf oo ah siyahayaha xilka gudoomiyaha ee degmada Bulaburde والله بالله مقالة وقت حالة أدي كنتها إلا وقت حالة كان مقالة نحن لما تقولون كوكوه رأسا هي هو رباجر نسو قاري حتى شالي إلا إنترنت وحنسو قاري عرور وغيران إلا إتدبع عرور وقفوا الله كالكاني يتدوين وسدحة مركا سيدات أي وحو جيران شو من بيود نوا حتى قردار أيها الله طلبا الدوال اللي يراه من مقالة كبحسن أيها وصميني إلا يأثر عرورة والله تاستو إلهي كوحرموا لكن أنك الدذال أيها موجينينا أود إلهي إسكال أنك الدذال كاسا يا وحي كرانكا إنك قابطونا الدواليرة
dadkiina hadda meel ayay joogaan ayaa isku geyn meel isbitaal leh shaqadiina way socotaa kulley wixii laga qaban karan waa ka qabanay wixii kalena ummadda Soomaaliya ay ugu baahannahay qaybaheeda kala duwan ama hay'adaha samafalka ha noqdaan ama kuwa local international intaba caruur badan ayaa ku geeriyootay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne halkaas oo markii ugu horeeyay uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaas oo maanta dhibaato ku haya dadka ku nool gobolka Hiiraan mahadsanid cali cilmi salaad aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa maanta u codeynaya dacwad xilka qaadis ah oo laga gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warsarayna maanta Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya aqalka sanadka ayaa maanta waxay go'aan ka gaarayaan doodii ugu dambeysay ee madaxweynaha Mareykanka ee Trump ee la xiriirtay xilka qaadista kadib markii hore dacwad xilka qaadis ay u soo gudbiyeen aqalka hoose ee Mareykanka madaxweynaha Trump ayaa waxa lagu eedeynay inuu ku dhaqaaqay ku tagrifal awoodeed waxaana dacwadani hore u soo gudbiyay aqalka sare dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wuxuu qabaa rajo ah in xilka qaadistan uu ka badbaadi doono maadaama xisbigiisa ay ku xoogan yihiin aqalka sanadka tirada guud ee golaha ayaa ah 100 waxaana uu ku badbaadi karaa madaxweynaha Trump inuu helo codad kala dhiban doono 3 dalool laba kamid ah madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa tan iyo markii uu yimid aqalka cad ee Mareykanka wuxuu wajahayay eedeemo qaarkood aad u culus oo ay kamid tahay isor istaag sharciga ah iyo inuu diiday la shaqeynta xubno ku hawlana kiiskiisa madaxweynaha Mareykanka ayaa hore waxa loo sheegay in sanadda military ee uu sii wadanka Ukraine uu adeegsaday in lagu fadeexeeyo hogaamiye isaga kula jir tartan kaas oo ah Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka mahadsanid maxamed haatanna Puntland ciidamada amniga Puntland ayaa magaalada Boosaaso waxay ka sameeyeen howlgal culus waxaana ay ku soo qabqabteen dhalinyaro fara badan Farxaan Maxamed Xuseen ayaa noo soo baqaaday ciidamada ammaanka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa saacadii la soo dhaafay baaritaan waxay ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi baaritaanada ay sameeyeen ciidamada ammaanka magaalada Boosaaso ayaa waxa lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro kuwaasi oo laga soo qabtay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi dadka la soo qabtay ayaa waxa la isku keenay saldhigga magaalada Boosaaso saldhigga magaaladaasi ayaa waxa buux dhaafiyay ehelada dadka la soo xiray sida ay noo sheegeen goobjoogayaal ku sugan halkaasi baaritaanadan ay sameeyeen ciidamada ammaanka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxay imaanayaan xilli maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaaladaasi ay ka dhacayeen falalidii ku ammaanka iyadoona maalintii shalay ahayd halkaasi dil iyo dhaawac loo geystay askar ka tirsan ciidamada maamulka Puntland wali wax wara kama soo bixin mas'uuliyiinta magaalada Boosaaso oo ku aadan dadka ay soo qabteen ciidamada maamulka Puntland ee ku sugan Boosaaso bilooyinkii dambe waxaa magaalada Boosaaso ku soo badanayay dilka loo geysanayo askarta ka tirsan ciidamada ammaanka magaaladaasi kuwaasi oo ay geysanayaan kooxo hubeysan dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ayaa bartamaha magaalada Boosaaso lagu dilay xilli habeen ah gudoomiyihii hore ee degmada Qandale ee gobolka Bari iyadoona goobta ay ka baxsadeen kooxdii dilka gudoomiyaha ka dambeysay halka warkaasi dhageystayaal aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho iminkana akhbaraadka dibadda dowladda Iiraan ayaa daaha ka qaaday inay diyaar u tahay wadahadal siyaasadeed ay la gasho dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta kuwaasoo xukuumadda Tehraan ay u aragto cadawgeeda marka laga yimaado maamulka Yuhuudda iyo Mareykanka safiirka dowladda Iiraan u jooga dalka Ciraaq Iraaj Masjidi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay diyaar u tahay wadahadal ay labadan dal la gasho ee khaliijka kuwooda ugu itaalka badan ku jira weli dowladahani fariinta ku foorarta ay kaga timaada Iiraan wax war ah kama aysan soo saarin balse haddii warkan ka yimid Iiraan ay si dhab ah noqoto waxaa laga yaabaa ayaa la yiri in siyaasadda iyo deganaanshiyaha gobolka ay wax weyn ka bedeli doonto ugu dambeyntiina militariga dowladda Yemen ayaa dilay ugu yaraan 15 ka tirsan xuutiyiinta dalkaasi ka dagaalantay dagaalka kula jirta xulafada Sacuudiga iyo dowladda dalkaasi dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Al-Jawf ee ku yaala Yemen wakaalada wararka Sacuudiga ee magaceeda loo soo gaabiyay SBA ayaa warinaysa inay dhinteen 15 kamid ah dagaalyahanada xuutiyiinta kadib markii dagaal toos ah uu dhaxmaray ciidamada dowladda oo garab ka helaya xulafada ay horkacayaan istaga Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga dowladda Yemen iyo saaxiibadeeda dagaalka ku garab siinaya ma sheegin wax khasaare oo dhankooda soo gaaray intii uu dagaalka socday dalalka khaliijka kuwooda ugu firfircoon ayaa muddo ka badan 5 sano waxay la dagaalamayaan xuutiyiinta walina ma muuqdo in dagaalka uu soo
dhammaanaya iyo in kale. xuutiyiinta ayaa dhankooda iyana guulo ka sheegta dagaalada ay kula jiraan sacuudiga iyo imaaraadka oo garab siinaya dowladda yemen ee caalamka uu aqoonsan yahay.